Saameey oo bixiyay xog la yaab leh iyo dagaal lagu qaaday isaga iyo Cali Jeyte. Maxay tahay dhacdada la yaab kale uu ka warbixiyay Saameey? Xagee bay ka dhacday yaasa soo weeraray Saameey iyo gudoomiye Cali Jeyte? Qaalkan ayaad kaga bogan doontaa ila soco. Aynu ku bilownay agaasimii hore canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Muxyidiin Xasan Saameey ayaa ka hadlay eedeynta musuqmaasuq ee loo haysto isaga oo shaaciyay halka uu joogo. Muxyidiin ayaa sheegay in ujeeddo siyaasadeed oo salka ku haysa dagaalka ay la galeen Al-Shabaab lagu beegsaday isaga iyo gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte. Ujeedada beegsiga waa hankayga Hirshabeelle oo laga cabsi qabo aniga iyo Cali Jeyte isku ujeedo weeye duulaanka na lagu qaaday waa inaan argagixisada la dagaalamin ayuu Muxyidiin Saameey oo wareysigan siiyay wariye Faarax Geylan. Saameey ayaa markii lagu soo eedeeyay musuqmaasuqa wuxuu u baxsaday dhanka gobolka Shabeellada Dhexe wuxuuna wareysigan ku sheegay in deegaankiisa uu joogo oo dalka uusan ka bixin. Sidoo kale Saameey ayaa sheegay in la dagaalanka musuqa uu aad u taageersan yahay balse asaga aan sharci loo marin baaritaankiisa oo boogsi toos ah oo kala kulmay xafiisyo gaar ah. Aniga musuqmaasuq mana sameyn, qof kasta oo sameeyana waan ka soo horjeedaa, laakiin waa iska arrimo siyaasadeed in qolo u socota booskaaga ay ku arbisto ayuu yidhi. Saameey ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in hay'adda cadaaladda uu hortago oo musuqa lagu eedeeyay uu iska bariyeelo waa haddii la helo garsoor dhexdhexaad ah siduu hadalka u yidhi. Wuxuu intaas ku sii daray Saameey in ragga baacsanaya dadka ee musuqa la dagaalamaya ay yihiin shaqaale u shaqeeya madaxda xukunka joogta balse loo baahan yahay garsoor madax bannaan oo siyaasadda bannaanka ka jooga. Ma jirto cid baartay ama wax weydiisay, waxaana ka war helay in waaran la ii jaray, taasna sharci maaha. Cid su'aal weydiisay oo garsoorka dalka ka tirsan haddii jirto waa igala doodi kartaa ayuu yidhi Saameey. Ugu dambeyntii Muxyidiin Saameey wuxuu sheegay in kooxda Al-Shabaab uu muddo dheer dagaal kula soo jiray oo macawisleydii ugu horeysay uu ka aasaasay Shabeellada Dhexe isla markaana dagaalka lagu qaaday uu salka ku haya dagaalka Al-Shabaab. Saameey ayaa wareysigan waxa uu ku sheegay in musuqa lagu soo eedeeyay isaga iyo gudoomiye Cali Jeyte aysan wax run ama dhab ahayn, sidoo kalena ay tahay sababta ay dagaalka ula galeen xoogga khawaarijta oo asaga uu sheegay inay aasaaseen macawisleyda. Waxaan ognahay in macawisleyda ay door muhiim ah ka qaateen la dagaalanka argagixisada iyagoo ka xoreeyay deegaano sanadooyin badan gacantooda ku jiray khawaarijta oo ay ka saareen, haatanna ay markaasi ammaankooda sugayaan. Haddaba Saameey ayaa waxa uu sheegay haddii uu aniga musuqaan wadi lahaa ama markaasi waxaan hoosta ka xadayo biyaan sameyn lahaa ciidan la dagaalamaya khawaarijta miyaan amniga dalka markaasi u helin lahaa oo markaasi ciidamo hubeysan dhisi lahaa. Saameey ayaa waxa uu sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay waxa lagu soo eedeeyay asaga iyo gudoomiye Cali Jeyte aysan raalli ka ahayn in cadaalad darro ama xaq darro markaasi lagu soo eedeeyo ama sumcadiisa meel looga dhaco, balse waxa uu sheegay in haddii ay jirto warcad cadaalad garsoore cadaaladna uu ku sugan yahay maxkamadda, sidoo kalena uu yahay midka kaliya markaasi ee ogolaanayo haddii ay jirto wax dhab ah oo lagu hayo. Balse waxa uu sheegay in inta haatan ay joogaan garsoore oo u shaqeynaya dadka xilka haya ama dadka musuqa markaasi ka shaqeynaya ay amar ka qaataan ama daba socdaan markaasi dadka xilka haya cid ay rabaan ay iska beegsanayaan uusan yeelayn waxa waaranka loo jaray. Saameey oo bixiyay xog la yaab leh iyo dagaal lagu qaaday isaga iyo Cali Jeyte. Maxay tahay dhacdada la yaab kale uu ka warbixiyay Saameey? Xagee bay ka dhacday yaasa soo weeraray Saameey iyo gudoomiye Cali Jeyte? Qaalkan ayaad kaga bogan doontaa ila soco. Aynu ku bilownay agaasimii hore canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Muxyidiin Xasan Saameey ayaa ka hadlay eedeynta musuqmaasuq ee loo haysto isaga oo shaaciyay halka uu joogo. Muxyidiin ayaa sheegay in ujeeddo siyaasadeed oo salka ku haysa dagaalka ay la galeen Al-Shabaab lagu beegsaday isaga iyo gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte.
ujeedada beegsigayga waa hankayga Hirshabelle oo laga cabsi qabo aniga iyo Cali Jeite isku ujeedo weeye duulaanka na lagu qaaday waa inaan argagixisada la dagaalamin ayuu yiri Muxyidiin Saabi oo wareysigan siiyay wariye Faarax Geylan. Saabi ayaa markii lagu soo eedeeyay musuqmaasuqa wuxuu u baxsaday dhanka gobolka Shabeellada Dhexe wuxuuna wareysigan ku sheegay in deegaankiisa uu joogo oo dalka uusan ka bixin. Sidoo kale Saabi ayaa sheegay in la dagaalanka musuqa uu aad u taageersan yahay balse asaga aan sharci loo marin baaritaankiisa oo boogsi toos ah oo kala kulmay xafiisyo gaar ah. aniga musuqmaasuq mana sameyn, qof kasta oo sameeyana waan ka soo horjeedaa, laakiin waa iska arrimo siyaasadeed in qolo u socota booskaaga ay ku arbisto ayuu yidhi. Saabi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in hay'adda cadaaladda uu hortago oo musuqa lagu eedeeyay uu iska bariyeelo waa haddii la helo garsoor dhexdhexaad ah siduu hadalka u yidhi. Wuxuu intaas ku sii daray Saabi in ragga baacsanaya dadka ee musuqa la dagaalamaya ay yihiin shaqaale u shaqeeya madaxda xukunka joogta balse loo baahan yahay garsoor madax bannaan oo siyaasadda bannaanka ka jooga. Ma jirto cid baartay ama wax weydiisay, waxaana ka war helay in waaran la ii jaray, taasna sharci maaha. Cid su'aal weydiisay oo garsoorka dalka ka tirsan haddii jirto waa igala doodi kartaa ayuu yiri Saabi. Ugu dambeyntii Muxyidiin Saabi wuxuu sheegay in kooxda Al-Shabaab uu muddo dheer dagaal kula soo jiray oo macawisleydii ugu horeysay uu ka aasaasay Shabeellada Dhexe isla markaana dagaalka lagu qaaday uu salka ku haya dagaalka Al-Shabaab. Saabi ayaa wareysigan waxa uu ku sheegay in musuqa lagu soo eedeeyay asaga iyo gudoomiye Cali Jeite aysan wax run ama dhab ahayn, sidoo kalena ay tahay sababta ay dagaalka ula galeen xoogga khawaarijta oo asaga uu sheegay inay aasaaseen macawisleyda. Waxaan ognahay in macawisleyda ay door muhiim ah ka qaateen la dagaalanka argagixisada iyagoo ka xoreeyay deegaano sanadooyin badan gacantooda ku jiray khawaarijta oo ay ka saareen, haatanna ay markaasi ammaankooda sugayaan. Haddaba Saabi ayaa waxa uu sheegay haddii uu aniga musuqaan wadi lahaa ama markaasi waxaan hoosta ka xadayo biyaan sameyn lahaa ciidan la dagaalamaya khawaarijta, miyaan amniga dalka markaasi u helin lahaa oo markaasi ciidamo hubeysan dhisi lahaa. Saabi ayaa waxa uu sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay waxa lagu soo eedeeyay asaga iyo gudoomiye Cali Jeite aysan raalli ka ahayn in cadaalad darro ama xaq darro markaasi lagu soo eedeeyo ama sumcadiisa meel looga dhaco, balse waxa uu sheegay in haddii ay jirto warcad cadaalad garsoore cadaaladna uu ku sugan yahay maxkamadda, sidoo kalena uu yahay midka kaliya markaasi ee ogolaanayo haddii ay jirto wax dhab ah oo lagu hayo. Balse waxa uu sheegay in inta haatan ay joogaan garsoore oo u shaqeynaya dadka xilka haya ama dadka musuqa markaasi ka shaqeynaya ay amar ka qaataan ama daba socdaan markaasi dadka xilka haya cid ay rabaan ay iska beegsanayaan uusan yeelayn waxa waaranka loo jaray.